waxaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika saddexdii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay banaanbaxyo iyo kulamo waaweyn oo lagu garab istaagayay walaalaha reer Falastiin. Maalinkii Jimcaha ayaa barxadda weyn ee Firdawsburg lagu tukaday salaada khudbada Jimcada iyadoo halkaasi duco iyo lacag aruurin loogu sameeyay shacabka dhibaataysan ee reer Falastiin. Maalinkii Sabtiga ayaa muslimiinta Johannesburg iyo nawaaxiga Mayfair waxay baabuur ku dhaxmarayeen xaafadda Mayfair Brixton laqlaqta ayagoo tusayay caalamka dhibaatada haysato walaalaheena reer Falastiin. Maalinkii Axadda ayaa waxaa barxadda Firdawsburg lagu soo bandhigay waxyaabaha ay carruurta ku cayaaraan oo kala nooc ah, cuntooyin iyo waxyaabo badan si bulshada muslimiinta ay ugu tukaameystaan dhaqaalaha ka soo xaroodana halkaasi loogu deeqo walaalaha reer Falastiin. Lacag dhan 150,000 oo rand oo u dhiganta $8,100 Mareykanka ah ayaa habeennimadii xalay ahayd lagu wareejiyay Axmed Saciid oo ka socday hay'adda Umayd Waqaf oo ka mid ah hay'adaha caawinaya walaalaha Falastiin. ahna Maxamed Cabdullaahi Julaybiib ahna directorada Mayfair Muslim Youth Organization ayaa caawa waxaan halkan iskugu imaanay in aan gudbino misahan hanover wax la yiraahdo inaan sameeyno lacagti walaalaha muslimiinta aan ka soo qaadnay ee ugu soo tabaruceen walaalahooda reer Falastiin oo burburka iyo dhibaatada haysato ayaan caawa aan ku aamini doonaa hay'adan la magac baxday Umayd Waqf oo wadanka ka howlgalka hayso insha Allah lacagtaas oo dhan 150,000 oo lacagta wadanka South Africa rands marka lacagti waatan hortayda taalo insha Allah waan ku wareejin doonaa ninkan waftigaas ka socdo Ahmed jazakumullah khair thank you so much. waxaana damqiyay dhibaatada ka taagan halkan caawa waxaan u joognaa inaan ku wareejino lacagihii aan soo aruurinay inaan ku wareejino hay'adii gaarsiin lahayd walaalahan reer Falastiin intani in hadda aan isleenahay dhibaatada meesha ka jirtay kaafin kartaa ma ahan laakiin waxaan isleenahay culayska oonbay wax ka bedeli kartaa haba yaraatee mana joojin doono inaan gargaarno inaan tabarucaad sameeyno waa sii wadi doona insha Allah taala muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta joogaan inay isku duubmaan halka doolar ama $2 ay bixiyaan qof walaala oo dhiban oo madfac ku dhacay gurigiisina ka dumiyay oo dhibaataysan oo dhiigbaxay daweysa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynayaa wixii aan aruunayno u barakeeyo tahay inaan caawa halkan aan kaga qayb qaato jaaliyada muslimiinta ku nool Johannesburg oo lacag deeqa ugu deeqay walaalahooda Falastiin waxay halkaas ka tusaysaa ayagoo qaxooti ah dalal badan oo Afrika ka kala yimid dhibaato dalalkooda uga soo cararay inay dhibayso xanuunka maanta ka taagan Falastiin oo ah qaxooti kala caawinaya muslimnimadana intaas keenaysa መጣሁት ከጆሃንስበርግ ሙስሊም ሴቶች ኮላቦሬሽን ይሄንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ 3 ቀን ሆኖናል በሜፌር ሶማሌ ትብብር አንድ ላይ ይሄንን ለፓለስቲኒያ አላህ እንግዲህ ይሄ በጣም ትንሽ ነው ግን ያው የኛን ከወንድሞቻችን ጋር ከፓለስቲኒያ እንዲሁም ደግሞ ከእህቶች ወንድሞች ጋር ያለንን ትብብር ለማሳየት የተሰራ ስራ ነው አልহামዱሊላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሁሉም ወንድሞቻችን እዚህ ላይ ለተገኙ ለተሳተፉ ሰደቃውን ላሳተፉ ሁላ ጀዛኩሙላህ. First of all, allow me to thank you and thank all the Somalian community for this great work that you have done, all the sisters and brother. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. My name is Ahmed Saeed. I am the marketing manager of Umayd Waqf from Turkey. Alhamdulillah Rabbil Alameen, after the 3 days of the activities that has been done by Mayfair Muslim Youth Organization as well as the Johannesburg Women Coalition, Barakallah fikum for the efforts that you have done and for the donation that you have delivered. Inshallah, the money that we receive it with 150,000, inshallah, it will reach to the people of Gaza, to the needy peoples, to the women, to the children, to people who are suffering
from the current situation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. And bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, we'll keep going and doing the projects that we are doing. And in a few weeks from now, you will receive the reports of the project that is already done by your names. And for whoever would like to continue, inshallah, we will be able to implement in behalf of you. Barakallah fikum. Allow me to thank Brother Julaybib, Sister Selma, and the rest of the brothers, Brother Abdullah, and the rest of the brothers and sister here. Actually, the efforts that I saw. وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي. sheekh axmed al-Omari oo ka mid ah guddiga masjidka barakaysan ee al-Aqsa ayaa meel fagaaraha ugu duceeyay walaalaha reer Falastiin waxa uu u mahadceliyay dadka Soomaaliyeed iyo waliba dawladda Soomaaliya. أن نحمل رأس الحرب في الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد النظيف، الجهاد الذي يعبد الطريق للتحرير، لتحرير قدسنا وأقصانا. ولذلك إخوانكم في غزة العزة سموا غزوتهم بطوفان الأقصى. ولا تنقصهم، اللهم أكرمهم ولا تذلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم مدهم. رشيد حسين كراش، شبيلة TV، روزبنك، جوهانسبرغ.